السلام عليكم ورحمة الله. kusoo dhawaada barashada xisaabta imtixaan inoo ahayd. magacaygu waa Shiine Gestir. caawa waxaan ka hadlaynaa xisaab muhiim ah oo la dhaho simple interest. anagoo kaan baqaadayna su-aasha halka nagu qoran. Ebian Raage waa gabadh ku nool cariga Soomaaliyeed. waxaa bangiga dhexe ee Axmed Gurey u taala $10,000 muddo dhan 5 sano. waxaana u siyaaday muddadaas dhan 5 sano 10%. haddaba waa imisa lacagta u fuushay ama ay faa'iiday. dabcan markii aad lacag dhigatid bankiga, lacagtaas waa lagu shaqeeyaa. lacagtaasna markii lagu shaqeeyo xoogaha faa'iido ayaa lagu dul saaraa lacagtaadii. dabcan lacagtaasi waa ribo, waxaana la yiraahdaa interest. marka taas ayaan caawa insha Allah ka shaqeynaa sida looga shaqeeyo. haddaba waxay noo sahlayaa inaan ka shaqeyno xisaabtan formula halkan ugu qoran. interest waxay la mid tahay P times R times T. I dan waxay noogu taagan tahay interest, P dan waxay noogu taagan tahay principal, R tanna waxay noogu taagan tahay rate, T dan waxay noogu taagan tahay time. markan waxaan raadinaynaa inaga waa interest. interest ayaan usoo gaabsanaynaa. waxay la mid tahay principal lagu dhuftay rate lagu dhuftay time. principal waa maxay? principal waa markii horeysa lacagtay dhigatay oo ahayd $10,000. halkan $10,000 noogu soo qor. $10,000 lagu dhuftay rate. rate waxa weeyaan lacagta boqolkiiba inta ay gabadha u kordhay. lacagta u kordhay waa boqolkiiba 10. boqolkiiba 10 ayaa waxaan u bedelaynaa decimal. waxaan dhahaynaa 10 loo qeybiyo 100 waxaana la mid tahay 0.1. 0.1 ayaa haan ku qoraynaa marka 0.1. boqolkiiba 10 sideeda halkan laguma qori karo waayo xisaabta isma keenayso. laakiin haddii aan u bedelno 0.1 oo decimal ah, xisaabtu way inoo qurux badnaanaysaa. haye aan hoos socono. rate waan qornay oo lagu dhuftay time ba dhahaynaa. time oo ahayd halkan soo fiiri waa 5 sano lagu dhuftay 5. intaa markaas ku dhufatid ay waxaa soo helaysaa lacagtii interestiga ahayd ee u kordhay Ebian. bal intaan isku dhufano waxaan dhahaynaa 10,000 lagu dhuftay 0.1 lagu dhuftay 5. waxaana soo baxday 5,000. waxaan dhahaynaa waxay la mid tahay $5,000. halkan waxaan kusoo helnay Ebian lacagta u kordhay lacagteedii. marka Ebian hadda bankiga waxaa u taala marka hore waxaa u taalay $10,000. $10,000 lagu daray 5,000 waxay la mid tahay 15,000. $15,000 ayaa hadda Ebian u taala bankiga. waxaan rajeynayaa inuu videogan gaaban ka anfacay qaabka loo xisaabiyo simple interest. inta aan video la mid ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo.